السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي wanaagsan meel kasta aad joogtaan oo markale barnaamijkeeda Hanaha Caafimaadka qaybtii lixaad. qaybtan waxaan ugu soo qaadan doonaa maxaa keena af urka ama maxaa sababa af urka iyo weliba xanuunada ay keenaan af urka. ka waran haddii adiga oo bulshada ku dhex jira oo afkaaga ka soo baxo ur saa'id ah haddana aad noqotid qof bulshadii ama mujtamacii uu ku dhex jiray markaasi ka dhex baxa oo gooni noqda. waa xaalad uusan qofna jeclaysan lahayn inuu la kulmo ama inay ku dhacdo. haddaba af urka marka laga hadlayo ama urka afka ka soo baxa ee zaa'idka ah mar wuxuu noqdaa xanuun ama xaalad ay keento xanuunada qaar ay keenaan, marna waxay noqotaa xaalado caadiya oo la xiriirta xagga nadaafadda afka oo liidata ama xagga cunooyinka la cuno oo markaasi laftirkoodu qaar kamida ay sababaan af urka. haddaba haddii aynu ku hormarno waxyaabaha dabiiciga ah ee keena af urka ee aan xanuunka ahayn ama waxyaabaha sababi kara af urka ee dabiiciga ah, kow waxaa kamida toonta caafimaadka aad bay ugu wanaagsan tahay oo lagama sheekeyn karo, laakiin si qofka haddii uu toonta cuno ama uu cuno cunooyin ay ku badan tahay toonta, saacadahaas hore toonta way soo carfaysaa oo carafteedu way fiican tahay, laakiin markii ay saacado badan qofka ay kasoo wareegato markaasi uu cunay caraftaasi ama urkaas ay toonta lahayd waxay isku bedelaysaa markaasi ur shiirshiir ah. qofkii haddii uusan isla markiiba cadaysanin urkaas hadduu afkiisa uu ku daayo saacado badan oo ay kasoo wareegato markaasi qofkii wuxuu isku bedelayaa afkiisa inuu kasoo baxo ur aana fiicneyn oo aan la jeclaysan. haddaba waxaa muhiima haddii aad toonta isticmaashid ama haddii aad cunooyin ay ku badan tahay toonta isticmaashid inaad isla markiiba marka aad ka dhamaatid aad isticmaashid daawooyinkan afka lagu cadaysto ee loo yaqaano Colgate-ka iyo daawo walba af markaasi lagu cadaysto si urkaasi badan ee toonta uu markaasi kaaga bo'o. midda labaad ee dabiiciga ee keeni kartaa af urka ama afka inuu soo shiiro waxaa kamid ah basashu aad baan u isticmaalnaa haddii cunto lagu karsanayo iyo haddii si kale loo isticmaalayaba caafimaadkana way u wanaagsantahay, wax dhiba ma lahan, balse urkeeda ayaa wuxuu yahay ur zaa'id ah oo xoog badan. saacadaha hore markii basasha la isticmaalayo way carafsan tahay oo carafteedu aad bay u fiican tahay, laakiin qofka haddii uu saacado badan ay kasoo wareegato urkaasi wuxuu isku bedelayaa kadib ur aana fiicneyn. sidaa daraadeed waxaa muhiima toonta iyo basashaba waa laba shay oo caafimaadka u wanaagsan, urka ay wataan uu yahay ur aad u xoog badan. qofka markuu isticmaalo labadaas shay waa inuu isla markiiba uu ka cadaystaa oo afkiisa uu cadaystaa. midda saddexaad ee dabiiciga ay keeni karta af urka waxaa kamid ah xawaajiga lagu daro cunooyinka, siiba xawaajiga lagu badiyo cunooyinka, ha noqoto xawaaji la tumay ama xawaaji caadiya ama mid shiidan, nooceeraba ha noqoto. marba haddii cunada la cunayo ama cuntadaasi cuntay ay noqoto cuno xawaajiga ay ku badan tahay, ogow markaasi afkaaga inuu soo urayo urkaasina haddii aadan isla markiiba cadaysanin hadhow uu isku bedelayo markaasi afkaaga inuu soo uro. sidoo kale cunooyinka xawaajiga lagu badiyo waxay leeyihiin qofka waxay ku keenaan dibiro, waxay ku kiciyaan gaas, sidoo kale qofka waxay u keenaan af ur saa'id ah haddii uusan isla markaasba afkiisa uusan nadiifin. waxyaabaha sidoo kale dabiiciga ee keena af urka waxaa kamid ah cunooyinka lagu badiyo khamiirka ayaa iyagana sidoo kale keena af urka. khamiirka ama waxa loo yaqaan yeastiga sida waxaan loo yaqaano cajiinka oo kale waxay kamid tahay waxyaabaha haddii cuntadu ay ku badan tahay khamiirka ay qofka u keeni karto in afkiisii uu soo uro haddii uu isticmaalo cuno markaasi lagu badiyay khamiirka. sidoo kale waxaa sidoo kale keeni karaa afka inuu qofka soo uro waxa loo yaqaano bakteeriyada gasha ciridka afka. haddaba haddii aad isku aragtid in mar walba ilkahaaga aad nadiifisid oo ilkahaaga ay nadiif ku yihiin oo aad cadaysatid, laakiin haddana weli ilkahaaga ama afkaaga ur fiican uusan kasoo bixin oo ay markaasi ur zaa'ida uu leeyahay, waxaa markaasi muhiim ah inaad dhakhtarka la xiriirtid, sababtoo ah haddii ciridka ay ku jirto bakteeriya si walbo ilkaha loo nadiifiyo af urka ma ku daynayo oo markasta afkaaga wuxuu usoo urayaa sidii qof aan ilkihiisa ama afkiisa nadiifinin. haddaba bakteeriyada waxay kamid tahay gaar ahaan bakteeriyada ciridka gasha. qofka haddii uusan dhakhtar ama daawo qaadanin weligiis markaasi afkiisa isma bedelayo oo urkii afkiisa weli sidii ayuu u lahaanaya.
sidoo kale waxyaabaha keena af urka ee xagga xanuunada ah waxaa kamid ah qumanka ama xanuunka loo yaqaano qumanka ee afka qalaadna lagu dhaho tonsillitis ama xanuunkan ku dhaca qanjaha ama se qanjaha bararisa. haddaba haddii aad qabtid xanuunka qumanka sidoo kale xanuunkaasi wuxuu keenaa af urka oo qofka inta uu xanuunkaasi qabo oo xanuunkaasi uu la tacaalayo wuxuu isku arki doonaa af ur badan. saa daraadeed waxaa muhiima haddii aad iskaga shakisan tahay quman amase haddii aad qabtid quman oo daawooyin u qaadatid in mar walba dhakhtarka daawooyinka kuu soo qora aad ku tiraahdid haddii uusan kuugu darin daawooyinka afka lagu cadaysto ee loo yaqaano afka lagu luqluqdo ee loo yaqaano mouthwashka inuu kusoo raaciyo daawooyinka uu kusoo siinayo sida kiniyaasha. mouthwashka waxay ka caawineysaa in mar walba oo aad daawada cuntid amase mar walba inaad markaasi afkaaga aad ku luqluqdid, waana daawo markaasi kaa nadiifineysaa bakteeriyada ciridka ku jira urka ay ilkaha amase afka guud ahaanba ay ku sameyso. sidoo kale waxyaabaha afka u keena urka waxaa kamid a ilkaha oo ku dhashaan suus. inta badan dadkeena kama warqabaan ilkahooda inay suus ku jiraan iyo in kale ilaa qofka uu xanuunsado amase xanuun ilkaha ay soo wajahaan mooye amase ilaa qofka uu dhakhtar u tago oo dhakhtarka ku dhaho ilkaaga suus baa ku jira. maan dadku badanaa ilkahooda aada ugama warqabi karaan. marka sidaa daraadeed dadka sidaas oo kale ah haddii ilkahaaga aad ku aragtid suus ama haddii ilkahaaga uu dhakhtarka kugu dhaho suus baa ku jira, ogow inta suuskaasi kugu jiro oo aad la tacaalaysid oo xal u helaysid in ilkahaaga markasta ay soo uri doonaan oo ilkahaaga ur zaa-ida kasoo bixi doonaan. adoo markasta cadaysta oo markasta ilkahaaga nadiifiya ayay weli soo urayaan. waa arkay dad badan oo ka cabanaya ilkaheena markasta waa nadiifina urkaan xageebuu nooga imaada. haddaa aragtid mar walba adoo ilkahaaga nadiifiya laakiin haddana ilkahaaga soo urayaan, ogow urkaasi ma ahan ur la xiriira xagga nadaafada ilkahaaga oo liidata, xagga cuntada ma aha, waa ur la xiriira xanuun, ha noqoto xanuun bacteria, ha noqoto inflammation, xanuunada caabuqyadan ku dhaca ilkaha. waa xanuun markaasi waxa keenaya af urkaaga adoo markaasi ilkahaaga nadiifiya. marka isku day inaad dhakhtar la xiriirtid. sidoo kale waxyaabaha af urka keena waxaa kamid a dadka la ildaran xanuunka gaaska, iyagana sidoo kale way isku arkaan af urka sababtoo ah aashitada caloosha amase dheefshiidka oo aana markaasi fiicneyn ayaa sabab u noqonaysa. ama sidoo kale haddii uusan si fiican u shaqeyneyn dheefshiidka caloosha iyadana sidoo kale way keentaa af urka. sidoo kale dadka qaba xanuunka gaaska aashitada calooshooda markasta way sareysaa, aad bay u sareysaa. marka taas ayaa keenaysa qofka in afkiisa mar walba uu soo uro haddii uusan isticmaalin waxyaabahan afka marta lagu carfiyo amase daawooyinkan ilkaha lagu cadaysto ee xooga markaasi uga bi'inaya urkaasi. sidoo kale dadka qaba xanuunka macaanka amase diabetic mellitus xanuunka laho iyadana badanaa way isku arkaan af ur markaasi aan ahayn xagga af ur la xiriira nadaafada ilkaha, iyagoo ilkahooda nadiif yihiin haddana afkooda weli wuu soo urayaa. marka waxaa muhiima iyagana mar walba inay dhakhtarkooda u sheegaan amase dhakhtarka daawooyinka usoo qoro ay la xiriirayaan in markaasi uu usoo raaciyo wax markaasi amase daawo af urka zaa-idka ah ka bi'iya. sidoo kale af urka waxaa keeni karaa markii laga soo tago xanuunadaasi iyo xaaladahaasi goonida ah xagga nadaafada. mar waana soo sheegnay oo waxaan niri af urku mar wuxuu la xiriiraa xagga cunooyinka qaar oo la qaato, marna wuxuu la xiriiraa cudurada amase xanuuno afka soo wajaha, marna wuxuu la xiriiri karaa xagga nadaafada. marka midan qodobkani waa qodobka nadaafada. afka haddii uusan qofku cadaysan amase haddii uu nadiifsanin, tusaale ahaan markii uu la seexanayo, markii cuntada la cuno, markii lasoo kaco, 3daas jeer oo kale waa muhiim bay u tahay in markaasi ilkaha la cadaysto. sababtoo ah 3 jeerba qofka markuu cuntada cuno, cuntadaasi waxaa laga yaabaa in hadduu saacado badan kadib ay kasoo wareegato in cuntadaasi uu cunay ay urkii cuntada in ay isku bedesho markalan afkii in hadhowti ur saa-ida uu kasoo baxo oo aan fiicnayn. xilliga hurdada iyo xilliga qofka uu seexanayaba amase uu soo
soo toosayana waaba waajibba qofka inuu labadaasi jeer ilkihiisa cadaysado. marka saddexaadna soo raacdana waa qofka mar walba oo cuntada cuno. haddaba haddii aad isku aragto in adiga oo ilkahaaga mar walba nadiif yihiin oo ilkahaaga aad nadiifisid oo xagga nadaafadaadu fiican tahay, xagga cunooyinka aad cunaysidna aad hubisid inay yihiin cunooyin markaasi aan af ur badan kuu keeneen amase cunooyin iska caadi ah laakiin weli uu afkaaga soo urayo, isku day inaad xal u heshid oo dhakhtar u tagtid oo ilkahaaga soo baartid, amase ilkahaaga suus baa ku jira, amase caabuq ilkahaaga ku jiraan, amase xanuunka qumanka baa qabtaa, amase ilkahaaga xanuuno kale ayaa ku jira. marka waa muhiim inaad dhakhtarka u tagtid oo markasta aad ogaatid xaaladaada xalna aad u heshid.